السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo idiin hayo bahda TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Kenya oo ka shaqeynaysa sidii ay isaga horkeeni lahayd wadamada Turkiga iyo Soomaaliya oo iminka uu xiriirkoodu aad u wanaagsan yahay haddaba dhabaha u maraysa Kenya qorshaha ay isugu dirayso Muqdisho iyo Ankara wararkeena ayaad ku daawan doontaan midowga musharaxiinta oo ku kala qaybsamay qaabka ay dawladda Soomaaliya u xalisay xubnihii tabashada laga qabay ee ku jiray gudiyada doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan Gorgor iyo Haram Cad ka qaaday Muqdisho kana dejisay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waa maxay ujeedada laga leeyahay wararkeena ayaad ku daawan doontaan xisbiyada mucaaradka Somaliland ee u cidiya wadani oo samaystay isbahaysi ka dhana xisbiga talada haya ee kulmiye kadib guul ay ka gaareen doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee ka qabsoomay Somaliland amisom oo si kulul uga hadashay duqeyn ay dad rayada ku xasuuqeen ciidamada Kenya oo ka dhacday gobolka Gado guddi baarisana u saartay dawladda federaalka Soomaaliya oo dhalishay doorashooyinkii ka qabsoomay deegaanada Somaliland iyo Mareykanka oo soo saaray gantaal cajiib ah oo si dhaqso ah ku gaaraya goob kasta oo kamid ah dunida qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka bahda TV oo diyaar garooba iyagoo dhameystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararkeena oo dhameystiran fadlan daawada si ay mar walba ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha leh ee bahda TV rukumo oo subscribe saara channelkan lana wadaaga asxaabtaada mahadsanid dawladda Kenya ayaa ka shaqeynaysa isku horkeenida wadamada Soomaaliya iyo Turkiga iyadoo oo xiriir cusub oo dhinaca militariga ah isku dayaysa inay la yeelato Ankara Kenya oo xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah ay kala dhaxayso wadanka dariska la ah ee Soomaaliya waxay markaan door bidaysaa inay meesha ka saarto saameynta uu Turkigu ku leeyahay Soomaaliya Nairobi waxay muddo ka walwalsanayd awoodda dheeriga ah ee uu Turkigu siinayo dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo uu 4 sano ee ugu dambeysay xoog saaray isagoo dhisay kumanaan kamid ah ciidamada militariga iyo booliska Soomaaliya siba ciidanka kumaandooska ee Gorgor iyo ciidamada booliska sida gaarka u tababaran Haram Cad labadaasi ciidan ayaa si gaar ah waxa ay Kenya ugu abuureen walwal horle iyada oo dareensan markasta oo ay korodho awoodda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay tahay cabsi ku soo wajahan Kenya oo mustaqbalka dhaawici karta siyaasadda Kenya ee ku wajahan Soomaaliya dawladda Kenya waxa ay dhawaan Turkiga la gashay heshiis ay kaga soo iibsanayso gaadiid nooca dagaalka ah waxa la sheegay in Kenya aanay xilligaani baahi weyn u qabin gaadiid dagaal balse ujeedada ay ku doorbiday in Turkiga ay hub iyo gaadiid dagaal ka iibsato ay tahay in ay Turkiga ku qalqaaliso inuu u soo weecdo dhinaca Kenya oo uu ka soo bayro Soomaaliya oo uu la leeyahay xiriir diblomaasiyadeed oo aad u sareeya uuna siiyo taageero joogto ah oo la xiriidha dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta iyo tababarada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Kenya waxay doonaysaa in faa'iidada dhaqaale ee ay Turkiga u bandhigtay ay mustaqbalka dhow horseedo in Turkigu uu ka guuro Soomaaliya una weecdo dhinaca Kenya talaabadaasi oo sida la aaminsan yahay aan suurtagal ka ahayn xukuumadda Ankara waxa ay dawladda Turkiga ee madaxweynaha ka yahay Rajab Tayyip Erdogan ay muddo dheer caawinaysay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda iyadoo la xasuusto sidii uu Turkigu indhaha caalamka ugu soo jeediyay Soomaaliya xilli ay ku jidhay xaalad adag oo abaaro ba'an ay ku dhufteen Soomaaliya 2011 waqtigaasi oo uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii Turkiga iminkana ah madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wixii inta ka dambeeyay waxa furmay dhaba saaxiibtinimo oo isku xiraya Turkiga iyo Soomaaliya kaasi oo ilaa iyo iminka isku xira labada dal oo xiriirkoodu uu aad u sareeyo wuxuu Turkigu ka furtay magaalada Muqdisho saldhigga military ee ugu weyn ee uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa arintaasi oo ay ka carootay xukuumadda Nairobi oo iminka doonaysa inay Turkiga u bandhigto qorshe uu saldhig military kaga furanayo gudaha wadanka Kenya faa'iidada ugu weyn ee ugu jirta Kenya in Turkigu uu joojiyo taageerada dhinaca ciidanka ee uu siiyo Soomaaliya waa inaanay wax kobac iyo horumar sameyn ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo si xawli ah uu Turkigu u tababarayay sanadihii ugu dambeeyay
xubnaha mucaaradka Soomaaliya ee midowga musharaxiinta ayaa ku kala qaybsamay qaabka ay xukuumadda Soomaaliya u wajahday xal u helista xubnihii lagu muransanaa ee ka tirsanaa gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo oo guddi wasiir ah oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble u saaray sidii ay uga soo tala bixin lahaayeen 67 xubnood oo kamid ah gudiyada doorashooyinka oo cabasho laga keenay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen guddigaasi in 34 xubnood oo kamid ah gudiyada doorashooyinka laga saaray guddiga kadib markii la ogaaday in ay yihiin shaqaale dawladeed iyo xubno xiriir la leh saraakiisha ciidanka sida hay'adda NISA guddiga xaqiijinta xubnaha gudiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay soo saareen liiska 34 xubnood oo ay sheegeen in laga saaray heerarka kala duwan ee gudiyada doorashooyinka dhawaan ayay ahayd markii midowga musharaxiintu ay soo gudbiyeen tiradhan 67 xubnood oo kamid ah gudiyada doorashooyinka oo ay cabasho ka muujiyeen waxaase la laalay oo gudiyada laga saaray 34 xubnood oo kaliya iyadoo intii kalena la iska daayay arintaasi waxa durba ku kala qaybsamay midowga musharaxiinta dhexdiisa oo qayb kamid ah ay musharaxiintu soo dhaweeyeen sida loo wajahay xal u helista xubnaha gudiyada doorashooyinka ee muranku ka taagnaa Cabdikariin Xuseen Guuleed oo horey madaxweyne uga soo noqday Galmudug iminkana u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya kana mid ah midowga musharaxiinta ayaa soo dhaweeyay qaabka ay xukuumadda Soomaaliya u wajahday isku shaandhaynta gudiyada doorashooyinka iyo xal u helida xubnihii tabashada laga qabay ee ku eedeysnaa in ay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu Cabdikariin sheegay inuu kaga mahad celinayo go'aanka guddiga heerka wasiir ah ee kala shaandhaynta gudiyada doorashooyinka isagoo sheegay in uu u arko in ay dadaal badan sameeyeen oo ay meesha ka saareen cid kasta oo lagu tuhmayay in ay shaqo leexsan ama mid dawladeed hayso oo aan lagu kalsoonaan karin dhexdhexaadnimadeeda waxaase diiday hadalka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo qaadacay qaabka ay xukuumaddu u wajahday xal u helista xubnaha tabashada laga keenay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ah xubnaha ugu cadcad midowga musharaxiinta una tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inaanay ka yeeli doonin Maxamed Xuseen Rooble oo ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wixii ay ka diideen farmaajo wuxuu ku nuuxnuuxsaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in xubnaha laga tagay oo kamid ahaa 67 xubnood ee ay cabashada ka gudbiyeen ay ku jiraan kuwa ka tirsan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo shaqaale dawladeed oo ay aaminsan yihiin in aanay doorasho cadaalad oo dhexda taala qaban karin balse ay u hiilin doonaan musharaxa ay dawladdu wadato oo ah madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu tilmaamay in si wanaagsan loo turxaan bixin xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee tabashada laga keenay balse laga saaray xubno loo arkayay markii horeba in aanay shaqo muhiim ahayn oo aanay dawladdu ku jiritaankooda iyo ka maqnaanshiyahooda gudiyada doorashooyinka wax micno ah u arkin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya siiba xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan in si dhab ah loo wajaho tabashada ay qabaan oo si toos ah loo turxaan bixiyo 67 xubnood ee ay ku tuhmayaan in ay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee NISA iyo shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya kala qaybsanaanta midowga musharaxiinta ayaa horseedaysa in horey looga socdo tabashada ay qabaan ayagoo markii hore ka hor imaanshiyaha talaabooyinka dhinaca dawladda ka hor yimaada isku aragti ka ahaa balse iminka ku kala qaybsamay waxa kale oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu ka shaqeynayo sidii loo fashilin lahaa heshiiskii lagu gaaray Muqdisho oo dalka aanay wax doorasho ah uga qabsoomin muddada ku siman 2 bilood ee ay qabsadeen madaxda dawladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee la doonayay in lagu qabto doorashada kuraasta golaha shacabka iyo aqalka sare dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa cutubyo ka tirsan ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad iyo ciidamada kumaandooska ee Gorgor waxa ay geysay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ahna caasimadda maamulka Hirshabeelle ciidankan sida gaarka u tababaran oo laga daabulay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayay diyaarad gaar ah ka dejisay magaalada Jowhar waxaana la filayaa inay ku biiraan dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab oo si xawli ah uga socday maalmihii ugu dambeeyay gobolka Shabeellaha Dhexe
saraakiil ka tirsan booliiska Haramcad ayaa sheegay in ciidanka lagu xoojin doono ciidamada gulufka dagaal ka wada gobolka Shabeellaha Dhexe oo deegaano ka tirsan ay ku sugan tahay kooxda Al-Shabaab sidoo kale ciidankan laga daabulay magaalada Muqdisho ayaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan xasilinta amniga caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar oo la filayo inay ka dhacdo doorashada xubnaha kuraasta aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qayb kamid ah waxaa jira dadaal xoogan oo lagu doonayo in Al-Shabaab lagaga saaro deegaanada ku teedsan magaalada Jowhar ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa sidoo kale ay ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee Haramcad doonayaan in meesha laga saaro maleeshiyaad macawisley ah oo dhowr jeer soo weeraray caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar kadib markii ay iskhilaafeen maamulka halkaas ka dhisan ee uu hogaaminayo madaxweyne Cali Guudlaawe Somaliland xisbiyada mucaaradka ee u cidiyay wadani ayaa sameystay isbahaysi ka dhana xisbiga talada haya ee kulmiye xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ay ku galayaan doorashooyinka golaha deegaanka ee maayarada iyo ku-xigeenadooda iyo gudoonka golaha wakiilada oo ay doonayaan inay qabsadaan xisbiga wadani oo ugu cadcad xisbiyada mucaaradka ee ka jira Somaliland ayaa waxa uu si weyn u doonayaa inuu hanto aqlabiyada xubnaha kuraasta golaha wakiilada oo uu ka helay tiradii ugu badnayd iyada oo xisbiga u cidna uu doonayo in uu biiriyo oo labada xisbi ay ku heshiiyaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee Somaliland labada xisbi ayaa isbahaysigan cusub ee ay ku dhawaaqeen waxay uga gol leeyihiin inay ku cadaadiyaan xisbiga talada haya ee kulmiye gudiga hogaaminaya isbahaysiga cusub waxay tiradoodu dhan tahay 10 xubnood oo xisbi walba uu keensaday 5 xubnood waxaana loogu talagalay inay ka soo shaqeeyaan habka saami qaybsiga maayarada degmooyinka Somaliland iyo sidoo kale qaabka ay labada xisbi ugu heshiin karaan hogaanka golaha wakiilada ee Somaliland xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa sanadkan wajahaya loolankii ugu adkaa waxaana laga cabsi qabaa in laga qabsado aqlabiyada golaha wakiilada oo horey u haystay iyo tangolayaasha deegaanka oo iminka uu xisbiga kulmiye xubno fiican ka helay balse laga cabsi qabo hadii ay isbahaystaan labada xisbi ee wadani u cid in laga heli doono maayarada magaalooyinka waaweyn ee Somaliland oo ay ku jirto caasimadda Somaliland ee Hargeysa gudiga doorashooyinka Somaliland ayaa ku dhawaaqay natiijadii ugu dambeysay ee cod bixinta ee gobolka Maroodijeex ee golaha wakiilada iyo tan deegaanka waxaana ay saddexda xisbi u kala heleen xisbiga u cid oo helay 5 xubnood xisbiga kulmiye oo helay 8 xubnood iyo xisbiga wadani oo helay 7 xubnood xubnaha soo baxay ee natiijadooda muddada dheer la sugayay waxaa kamid ah Barqad Jaamac Batuun oo ku soo baxay codka ugu badan ee xubnaha golaha wakiilada isaga oo helay qiyaastii 21,000 oo cod hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay dhaliishay hanaanka ay u qabsoontay doorashadii ka dhacday Somaliland siiba saamiga ay haweenku ku yeesheen wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Xaniifa Xaabsade ayaa ka hadashay doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay Somaliland iyo tii xildhibaanada Xaniifa ayaa dhaliishay saami qaybsiga kuraasta iyada oo wax laga xumaado ku tilmaantay in boqolkiiba 99 ay rag ku soo baxeen kuraasta golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland waxay sheegtay in golaha wakiilada Somaliland oo ka badan 80 xubnood aanay haweenku hal xubin xitaa ka helin Xaniifa ayaa sheegtay sidoo kale in 221 kursi oo golayaasha deegaanka Somaliland ay haweenku ka heleen 3 xildhibaan deegaan oo kaliya arintaasi oo muujinaysa sida haweenku aanay wax saami ah ugu yeelan siyaasadda Somaliland ee xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dawladaha hoose iyo golaha wakiilada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka hadlay duqeyn dad rayid lagu dilay oo ciidamada Kenya ay ka geysteen gobolka Gedo war ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in guddi baaris loo saaray duqeyn ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya ka geysteen gobolka Gedo taasi oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid AMISOM waxay sheegtay in aanay marnaba u taagnayn duqeynta dadka rayidka balse ay u joogto Soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab iyo cid kasta oo cadow ku ah jiritaanka dawladnimada Soomaaliya waxay sheegeen in duqeyntii ka dhacday gobolka Gedo ay geysteen ciidamada Kenya ay baari doonto natiijada kama dambaysta ahna ay soo bandhigi doonaan qof rayid ayaa ku dhintay duqeyn Kenya ay diyaaradaha dagaalku ka fuliyeen deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo 3 bishan June maalin kadib waxaa cambaareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo midowga Afrika ka dalbatay in baaris lagu sameeyo duqeyntaasi
ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa soo saaray gantaal cajiib ah oo gaaraya goob kasta oo kamid ah caalamka ciidamada cirka ee Mareykanka ayaa sii daayay tafaasiil ku saabsan qorshaha hankiisu aadka u ballaaran yahay oo ay ku sameynayaan gantaal qaadi kara canaab dhan ilaa 100 tan oo iskugu jirta xamuul iyo xitaa dad caadi ah si uu dhanka saanada uga taageero ciidamada Mareykanka gantaalka oo la awood ah diyaaradaha xamuulka ee loo yaqaano C-17 ayaa la doonayaa in uu adeegaas geeyo meel kasta oo dunida guudkeeda ka tirsan waliba saacad gudaheed iyada oo uu gantaalku yahay kuwa qaada markabyada todobaqaadka ee loo diro saldhig cireedka ISS ee hawada sare barnaamijkan oo sanadka soo aadan la bilaabayo ayaa miisaaniyadiisa waxaa lagu mudeeyay 2022 iyada oo la dalbaday adduun lacageed oo dhan 48 milyan oo dollar oo cilmi baarisa wuxuu Mareykanku doonayaa in uu hormariyo dhinaca tiknoolajiyada iyo sidoo kale awoodiisa dhinaca militariga isaga oo la xifaaltamaya dalalka kale ee Ruushka Shiinaha iyo sidoo kale wadamada uu loolanka kula jira Mareykanku walina waxa uu aaminsan yahay Mareykanku inuu yahay kan ugu horeeya dhinaca quwadda iyo soo saaridda hubka casriga ah oo ay dalal badani kaga hareen Mareykanka waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad kala socoteen Bahda TV